fadlan muuqaalka la gare si dad badan uu u gaaro anigana dhiirgelin ay ii tahay. waxa aan sagootinayaa maalmaha cidlada iyo kalinimada. noloshayda waxaa ku soo biirtay gabar aan mardhaxda isbarannay. waxa aan kala qaadanay nambarada lagu kala xiriiro. waxaad moodaa in labadeena aan isi sugaynay sida degdeg aan isku soo qabannay. waxaan u qoray aniga hay gabadha qurxoon sidee ayaa tahay. waxayna si degdeg ah igu soo warcelisay hay maxamed, hadda ayaan xaafadda imid. waxaan doonayay inaan ku soo qabto laakiin waad igala hormartay. alla talo miyaan is ogeyn ayaan hoos iska dhahay. iswaraysi iyo sheeko qurux badan oo halkaa inoogu bilaabmatay. waxayna habeenkaa ku soo dhammaatay inagu weli isku xiiso qabno laakiin wakhtiga uu aad u fogaaday. xilli dambena lama raayo. waxaan ku qasbanaana inaan ismacsalaamayno. macsalaamayn aanu naftu raali ka ahayn. habeen wanaagsan, waxaan kuu rajaynayaa caafimaad iyo farxad. nabad ku soo toos ayay igu tiri. si la mid ah ayaan anigana ku dhahay. waxaan dhinacayga dhigay teelka. waxaana bilaabay inaan dib u xasuusto hadal kasta oo qurxoona oo igu tiri. waxaan isweydiinayaa qof aad hadda isbarateen sidee ayaa sidan oo dhan isku fahamteen. miyaan israadin jirnay mise waa xiiso keliya oo aan isa siinayno. sida ayaan ku seexday weliba anigoo dareemayo reereen iyo farxad. mugdiga habeenka sidaa uma sii nagaanin sababtoo innaga ayaan saaxanay wakhti leyd ah. waxaan ku soo kacay codka sheekha masjidka inoo dhow ka dhawaaqayo. waxaan dareemay in salaada subax ay tahay. waxaan isku diyaariyey inaan tukado. tukasho kadib waxa aan dareemayaa in weli aanan ka dhammaysan hurdada. waana ku laabtay. saacado kooban aan hurdayay ayaan ku soo kacay dhawaqa moobeylka. waxaad moodaa in dhawaqani ula shaqaynayo wadnahayga. waxaan ogaaday inuu masaj iiga yimid bidhaan wacantii xiisaan u hayay. subax wanaagsan maxamed, sidee ayaa tahay? ma soo nabad kacday? ayaan ka akhriyay fariinta ii soo dirtay. isla markiiba waxaan labada suul kula cararay teelka. waxaana bilaabay inaan si degdeg ah uga jawaab celiyo. subax la mid ah, waan fiicnahay, waan soo nabad toosay. ee ii waran adiga sidee tahay? waxay igu soo jawaab celisay waa fiicnahay, ilaah mahadi. hurdada miyaan kaa toosiyey mise waa soo jeeday? waxaan ugu jawaab celiyey dhawaqa moobeylka ayaan ku soo kacay. waxaana dareemay inaad adiga tahay. maanta waa axad ee meel ayaad u socotaa ayay i weydiisay. waxaana ugu warceliyey may, waa nasanayaa maanta. halkaa ayaa inoogu bilaabmantay sheeko kale oo qurux badan oo xiisaheeda wadata. waxaan ku jiifaa sariirtayda. gacmahayga labada sul waxa ay dul ahaadeen moobeylka dushiisa. meelna uma dhaafo gudaha whatsappka aan kala hadlayo. waxaan dul dhex digay gudaha brofeylkeeda. inta ay qoraalka ii soo qorayso anna waxaan kusii mashquulaa sawirka u saaran brofaylka. marba sawirkaasi iyadu leedahay dhinac ayaan u rogrogaa. mar waxaan eegaa bilicsamaanta dhabanadeeda. sunniyaha ku daadigo hareeraha indhaha. intaayaanan ka badanin qeexidda quruxda ee bahay ku manaystay. ammaan iyo sheegsheeg way ka dhan tahay. maalintu waxa ay noogu dhammaatay sheeko iyo iswaraysi aanan dhammaanaynin. waxaad moodaa in sheekaba sheekada ay ka dambayso ay wadato xiisaheeda u goonida ah. asbuuc kadib waxa aan ku balannay in axadda soo socotaan is aragno. haye ayaa lagu kala hakaday. wacnaan laheeda in axaddu ay noqoto beri ayaan si hoose isku leeyahay. malaha iyadana waa ila mid sida aan dareemayo. axaddu sidaa uma sii fogeyn. waxaa la gaaray maalintii la isballamiyey iyo halkii lagu ballamay oo ahayd meel maqaaxi ah oo kofiga laga cabo oo ku taal aaga 8 Street. goobtaasi aniga ayaa dooray. waxaana ku dooray waa meel jawi degan, marmarka qaarna aan ku nasto, mana bulsho badno. marka ay tahay abaara galabtii oo kale ayaan aaday halkii aan ku ballannay. intii aan waddada sii soconnay waxaan wacay bidhaan wacan si aan u ogaado halka ay joogto. waxayna igu tiri hadda ayaan guriga ka soo baxayaa. adigaanan war kugu daalin waxa aan tegay goobtii lagu ballamay. waxaana inoo sii qabtay boos inagu wacan. wax yar ka bacdi waxaa soo gashay maqaaxida bidhaan wacan. waan sara joogsaday. weliba waxaan xaggeeda u tilaabay hal tallaabo si aan ugu hortago sharaf iyo karaamo aan u hayo darteeda. waxaan isku dhufannay indhaha si toos ah. waxaana hadalka ku bilaabay wow, maanta waad qurux badan tahay. iyadii oo ishayn la oo farxad halkaa ka sii qaaday ayay igu jawaabtay waad mahadsan tahay. waxaan fadhiisanay goobtii aan sii qabtay. iswaraysi iyo xoogaha iska kaftanaa kadib buu kalbiyeerigii inoo yimid.
wuxuu inaga qaaday dalabkii. Sheeko iyo isdhaafsi darin ayaa halkaa inoogu bilaabmatay. Aniga waxa aan ka sheekaynayaa sida dhaqso aan ula qabsaday iyada, sida aan hadalkeeda ugu dareemo farxad iyo rayrayn. Iyadana si la mid ah bay iga sheekaynaysaa dareenka ay ii hayso. Waxay ku celcelinaysay weligeyga qofna sidaan uguma furfurnaanin, sidaan adiga kugu furfurnahay. Waxaad moodaa inaan isnaqaano sanado badan, weliba dareen dadka kale aan ku arag ayaan isku arkaa markaan adiga kula hadlaayo. Sidaan isku dhaafsanaynay hadallada dareen kale ayaa hal mar waxa afkayga ka soo baxay kelmad nolol cajiiba iyo horseedi doonta, waxayna ahayd waan ku jeclahay. Bidhaan wacan oo la yaab u sare istaagtay iyadoo afka gacmaha ku haysata, waxayna u ekeyd qof si surprise wax loogu dhahay oo kale, walow aniga ku talagal aysan iga ahayn inaan ku dhaho. Waxayna igu tiri alla maxamed maruntaada, maxaanba jawaaba, waa naxay, hadalna waa iga soo bixi waayey. intii aan sida ahaa bidhaan wacan intay soo yara dugtay ay hab isiisay. daqiiqado ka bacdina waxa aan ka war helay cod hoose oo ii dhow leh, waan ku jeclahay sidoo kale. waxaan hal mar noqday qof, maxaan ku tilmaamaa, qof qabow badan. waan farxay, waxaana malaysan waayey jawaab celinta lama filaanka ay siisay. waxaana ii rumowgay malahaygii ahaa inay ila dareemayso dareenka aan u hayo iyada. weligay ima soo marin dareen ka qurux badan kana farxad badan dareenkan. halkani ayay ku soo idlaatay sheekadii jacaylkii kadiska ahaa. waxaan hubaa inaad ka heshay muuqaalkan. fadlan la wadaag asxaabtaada, hana ilaawi inaad laagarayso. waan ku doonayaa kama dheeriyey waan ku lahayaa kulliba nafto idil waan ku siinayaa kakaftur caabashada waan kula saaxayaa kuraba 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 kulnaaday kuwacnaaday kulba hatadii la wada ku dawoobay 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 kuraba kuraba